dhalinyaranimadu waa waqtiga ugu fiican ee nolosha ka mid ah. waa waqtiga uu qofka bini aadamkii dhiso adduunkiisa iyo aakhiradiisa. waa waqtiga kaliya aan cidilo lahayn qofku markuu weynaado xidhiidhkiisa tira bata, mujtamaca xidhiidhku la leeyahay ku tira bata, marka waqtigiisa inta badan isagu ma laha, dad kalaa leh. laakiin qofka dhalinyarada ahi waa qof isagu hanta waqtigiisa dhammaanteed, waana waqtiga ugu fiican ee uu qofka bini aadamkiisa dhisi kara adduunya aakhiradiisaba. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مركو آخرة أنك دليرة كورمي وحكوت المامي ددكي عرش الرحمن كهرسنا يا مالنتا قيامه ددكو كديدن يهي